jacaylkii dooqa ma lahan daag ka hor istaagi kartaa inaad wax jeclaato ama lagu jeclaado. Sheekada maanta aan idinla wadaagi doono ayaa ah haweeney aad u isticmaasha aalada TikTok-ga oo rabitaan jecel ah u soo bandhigtay wiil ay dhali karto markaad aragto muuqaalka hooyadaani. Haddaba waa kuwan wiilka jacaylka loo soo bandhigay, halkee ayuu ku nool yahay, ma yahay shaqsi aqbala xiriirka da'aadda ku dhisan. Intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gudbi doonaa walaal. Inta aan muuqaalka u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa haddii aad ka hesho muuqaalkan inaad like inoo saarto si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Sidoo kale la wadaag saaxiibada oo share garee si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah mar walbana ku xiran page-keena. Baraha bulshada waa halka keliya maalin walba dhaba kaa yaabinaya laga maqlo. Bulshada inta ugu badan waa kuwa aad ugu mashquulsan isticmaalka baraha bulshada iyagoo kusoo gudbiya waxyaabo kala duwan. Sanadihii ugu dambeeyay, barta TikTok-ga ayaa ahayd meesha loogu isticmaalka badan yahay marka aan ka eegno Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Aan u dhaadhaco dulucda muuqaalka maanta. Barta TikTok-ga waxaa aad u qabsatay maamo da' ah, taas aan ku qiyaasay da'deeda 60 jir ilaa 70 sano jir, waxayna jacayl daran u qaaday wiil ay dhali karto ka oo isagana aad u isticmaala aaladda TikTok-ga. Cali Shariif, oo ay dadka badan u yaqaaniin Cali Kay, waa shaqsiga laga helay oo maamada ay ka heshay, iyadoo heeso xambaarsan dareen rabitaan ah u soo dhigta barteeda meertada TikTok-ga iyadoo adeegsanaysa sawirka wiilka ay jeceshahay. Cali Kay waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aadka u isticmaasha baraha bulshada, isagoo bartiisa TikTok-gana ku maawilay kumanaan dad ah kuwaasoo u soo bandhiga muuqaallo qosol badan. Lama oga xiriirkan sida uu noqon doono, balse maamadu way shaacisay inay rabto wiilkan aadka u shidan, iyadoo habsugaaneed ay u soo bandhigtay jacaylkeeda. Haddaba haddii aad ila soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkeena, sidee u aragtaa xiriirka maamada ay ku doonayso wiilkan aadka u yar? Waad ku mahadsantahay walaal. Aragtidaadana qaybta hoose inoogu reeb.